guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ku ambaqaada dejiyoka doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya iyaga kulan loo weelday odayaal dhaqanka koonfur galbeed kulanka odayaalka iyo guddiga oo dhowr saacadood socday ma isku xog wareysadeen sidii la dejiyo lahayd doorashada xubno aqalka hoose tala ya isweydaarsadeen oo ka saabsanaaytay sidii sadanka dhowlan doorada lahaay xubno aqalka hoose ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya 4 sano hadarartii iyo kamitela doonaan dowlad goboleedka koonfur galbeed isoo wareysi tala isdhaafsi kureed warbaahinta dowladda ma in ku warbiyay kulanka muhiimaddu xambaarsanay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Yuusuf Abduqaadir Maxamed Baafo maanta ay taariikhdu tahay 25 bisha 9 2021 annagoo joogno magaalada Baydhabo guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed oo aan gudoomiyaha u ahay anigoo ahay Yuusuf Abduqaadir Maxamed waxaan kulan la qaadanay aniga iyo guddigayga odayaasha dhaqanka jooga magaalada Baydhabo sida aad la socotaan waxa bilaaban doona ololihii doorashada iyo shaqadiisa bilaaban doonta wadanka wuxuu aaday doorasho sidaas darteed shaqooyinka ugu badan waxay ku dhacayaan odayaasha iyaga ayaa laga sugayaa inay soo xulaan nimankii samadoonadii iyo maaragtay markay shaqada bilaabato sidaas darteed waxaan ku aansanay inta aysan shaqada bilaabanin in aan odayaashii aan la kulanno si aan isu baranno isbarasho iyo maaragtay isfahankii iyo habraacyadii lagu soo heshiiyey madaxweynayaashii maamul goboleedyada habraacii ugu dambeeyey oo maaragtay maamul loo aadayo doorashada inaan maaragtay u akhrino oo aan isla fahanno detailskiisa iyo sida wax lagu soo xulayo iyo habraacaas guud ahaan isfahankiisa inaan sheegno iyo isbarasho guud si fiican ayay noogu dhamaatay malaaqidii intii maaragtay shaqooyin badan noo dambeeyo kulamo badan noo dambeeyo maanta ajandeen intaas ayuu ku saabsanaa si fiican ayuu noogu dhamaaday isfahan noogu dhamaaday insha Allah maanta wixii ka dambeeyay waxaan yeelan doonaa kulamo joogto ah annagoo isla falanqeynayna sida wax lagu soo xulayo hadii ay yiraahdo maanta hadalkeen intaas ku ekaa waana si fiican ayaan ku dhamaysanay wassalaamu calaykum guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee la wada dhawaan intii bilaaban doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya iyadoo kulanka geeka iyo la weeldadeen odayaalka iyo diiradda ka saaran sidii sadanka dhowlan gobada lahayd doorashada xubno aqalka hoose Faisal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed magaalada Baydhabo